shirkan jirayd ee maanta magaalada Muqdisho oo ku qabtay wasiirka amniga maamulka Khartoum State Maxamed Salebaan Ducaale ayaa waxa uu ugu baaqay dawladda ku meelgaarka Soomaaliya inay ka fiirsato wada hadal ay la gasho maamulka Somaliland waa sida uu sheegay xilli deegaanadaasi ay ka soo baxayaan maamullo horle isla markaasina bulshada ku dhaqan ay bilaabeen in ayahooda ay ka tashtaan arinta ayada inay ka fiirsadaan oo dib ugu noqdaan oo ay noqoto marka dadka deegaanka magii isticmaalku bixiyay Somaliland aan ilaahabeen inay iyagu dib isugu noqdaan oo wada hadlaan oo hadii ay maamul leeyihiin iyo hadii ay maamul doonayaan iyo hadii ay meel suraa ay horta marka hore iyagu ay wada hadlaan meel ay wax isla dhigaan marka iyagu ay wada hadlaan ee meel wax isla dhigaan ee go'aan isla gaaraan inay markaa u soo gudbaan dawladda dhexe laakiin dawladda dhexe iyadoo oo aan meeshii waxba ka jirin oo nin waliba uu samaystay maamulkiisa iyo danihiisa Soomaali weyna dadkii wada yahay hadii reer kaliya soo haro oo yiraahdaan iyaga gudiyo u saarayna taas macnaheedu waxa weeye inay meel kaga dhacayaan wixii ay u dhaarteen calankii ay u dhaarteen iyo dhaartii ay mareen ee ahayd midnimada ummadda Soomaaliyeed inay ilaaliyaan inay meel kaga dhacayaan sidoo kale wasiirka ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole kaasi oo ahaa in maamulka Khartoum State ay martigeliyeen xarakada shabaab al-mujaahidiin arrin dhawaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo uu yiri gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee Khartoum State waxa ka jira oo degan wax la yiraahdo al-shabaab ayaa jooga hadaba anigoo ku hadlaya magaca golaha madaxtooyada Khartoum State golaha maamulka iyo wasiirada golaha sare ee dhaqanka iyo Khartoum State of Somalia dhamaan ahna wasiirka amniga waxaan u sheegaynaa adduun weynaha dawladda dhexe UN-ka inta danaysa arrimaha Soomaaliya arinta ka soo yeedhay madaxweynaha Puntland inay yihiin kuwo aan sal iyo raad midna aan lahayn waxna ay ka jirin waxaanu ku celinaynaa hadii ay jireen xilliyo uu wax kaga raadsan jiray Mr. Faroole hay'adaha ajnabiga ama UN-ka ama dawladaha deriska in waxaan la dagaalamayaa shabaab baan la dagaalamaya oo halka joogta taasi waxaan filayaa maanta inay dhamaatay oo ayan jirin wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dastuurka cusub ee loo sameeyo dawlad goboleedka Puntland wuxuuna sheegay in Khartoum State aysan wax shaqo ku lahayn waxa kaloo jira oo aan u sheegaynaa in dhawaan la doonayo in la sameeyo wax la yiraahdo dastuur Puntland leedahay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee Khartoum State waxa loo diray dad leeyahay ka keena dad matala dadkii ansixin lahaa dastuurka waan u sheegaynaa annaga iyo Puntland dastuur nagama dhaxeeyo siyaasadina nagama dhaxeeyo waxaan dhaqan iyo diin ahayn oo naga dhaxeeya iyo diris wanaag ma jirto ugu dambeyntii wasiirka ayaa ka warbixiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada Sool Sanaag Cayn wuxuuna sheegay in ciidamada Khartoum State ay gacanta ku hayaan deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen si kastaba amuurta ah shirka jirayd ee maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka amniga maamulka Khartoum State ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dhawaan dawladda ku meelgaarka Soomaaliya ay sheegtay inay magacowday guddi wada hadal la galaya maamulka Somaliland Cabdiqani Maxamed Bayow Somali Sat TV magaalada Muqdisho.